sida idin muuqata gawaaridan oo sugaya traffic light-ka ayaa gaarigani wuxuu iska waayay bareegii kadibna gawaaridii traffic light-ka sugayay ayuu ku dhuftay. Farxiyo Kabeer waxa ay tiri waxa hadda la soo sheegay in uu kabtan Ayuub shil gaari galay. Waxa hadda la soo sheegay in uu kabtan Ayuub shil gaari galay oo qaliin lagu sameynayo. Ilaahay ha ku caafiyo qaliinka ha ku fududeeyo. Amiin ayaan leenahay dhamaanteen taasi waa gobonnimo qof kasto lagama filan karo. Farxiyo Kabeer waxa ay sameysay macnaha waa wax gobonnimo leh. Macnaha waa wax qof kasto oo san ku dhiiri karin. Waxa jira in inta badan la yiraahdo dumarku haddii ay kula dagaalaan oo kale ama dumar iyo carruur mahma qaldan oo meesha ku bartaan waa looga tagaa iyo waxsaas taasoo macnaha dumarku haday mar kula dagaalaan dagaalkooda ma dhamaada taas Farxiyo Kabeer soo afjartay inkastoo Farxiyo Kabeer aan dhigi karno dumarku waxbay dheer tahay maadaama qof shalay markuu caafimaad qabay iska daa qofka meel laga taabto meesha ugu xun waxa waaye in shakhsiyadiisa lagu fogaado adigu meel xun aan laga hadlin xitaa waan jeclayn hadda inaan faagfaago waxaas aysan hadda ahayn wax laga soo gudbay baa lagu sameeyay sidaas ay tahay waxa ay noqotay qof xaalad dhalay ah oo waxa ay dareensan tahay qiimaha uu leeyahay caafimaadku iyo xanuunku waxa uu yahay dabcan qof markuu dib soo gaaro waxa fiican in wax kasto oo niyad ugu heeday ama wax kasto idinka dhaxmaray sida kaba yar oo kale ina iska ilowdo waana wax aad u qurux badan waayo Farxiyo Kabeer markii qoraalkaas soo qortay waan arkay yani bihaj fayga oo doonaya like iyo follow irsaaqad ku raadsanay oo isku dayaya inay Farxiyo Kabeer magaceeda sharaf dara ku ridaan iyadana ay sidoo kale ay u gafaan kabtan Ayuub oo hadhow dareemo markuu uu soo caafimaado insha Allah uu bogsan doonaa hadhow laga dhaadhiciyo kaba yar baa ku caayeysay markii aad xanuunsanada isbitaalka taal runtii taasi waa gobonnimo in kaba yaraba intaanba aysan bilaabin qolooyinkan in iyadu kala soo hormarto oo postigan ay Facebook-geeda soo dhigtay runtii dad aad u fara badan baa postigan la gareeyay oo aad u taageeray hadalka Farxiyo Kabeer anigu aad baan runtii u bogaadinay waxa la yahay Kabeer all balajina aheed haddana lajnimada si cadeysatay in dadka buka ama dadka dhaawac soo gaaro ama dadka dhibaataysan aan lagu diganin baad horta muujisay dad badan oo Soomaaliyeed ama dad badan oo Soomaaliyeed oo marka qaar markii dabcan Carabi ilka isqabtaan leeyahay dad badan oo Soomaaliyeed baa xajira oo markii arrin u dhacdo kale isqabta dadkaasna waxaad u noqotay tusaale wanaagsan runtii qof kasto oo social media ku jiro ama Soomaalidii kasto si kasto isku haysaba waxaad u noqotay tusaale in qofku marka uu caafimaad qabana la iska dhiciyo oo la xagxagto oo la karbaasho meel la iska saaro laakiin qofku markii dib soo gaaro sidan oo kale caloosha loo furo waxa sidoo kale cadeysay in aadan ahayn qof qabiil oo dabcan barnaamij hadda aan la wadaago kala jiray oo kan kooreeyo kabtan Ayuub iyo sidoo kale ku saabsan Farxiyo Kabeer iyo fanaaniin markaas xilligaasi ayuu qaab qabiil camal wax saas isku haystay arrin adu qaab qabiil camal oo abaabuleed dagaalkood marka hadda waxay cadeysay inaysan ahayn gabar qabiil laakiin ay tahay gabar qaran oo gabar Soomaali weyn gabar muslimada ah oo runtii aan ku farxin dhibaatada soo gaarta dadka markaas iyaga ay wax kala dhaxeeyeen oo kale calooshan oo furto waayo qofka marka uu wax soo gaaro wax walba ayaa iska suurtagal ah aniga hadda in la hadlayo ayaa laga yaabaa anigoo in la hadlayaba inaan haddana bariil leeyahay oo ninka shaar sheekaya noolo waa dhintay Allah u naxariistina tiraadina laga yaabaa qof kasto ciil iyo qabo inuu iska kaafiyo markaas Allah u naxariisto qofkii markaas aniga ciil iyo qabay oo markaas dhibaato iyo qabana waxa laga yaabaa in qof qalbiga madow iska haayo yiraahdo warniyo kaas Ilaahay uma naxariisto marka qofku markuu xaalad adag galo runtii waa loo duceeyaa sida Farxiyo Kabeer kare waxa la yiraahdaa Ilaahay ha u fududeeyo Ilaahay u boogadhay waayo qofkan waxa laga yaabaa in uu qalin buu galaya xalaal halis uu galaya inuu ku baxaa laga yaabaa marka adoo caloosha wax aga hayay ama adoo caloosha wax ugu hayo kale hadii qofkaasi uu jilaabto adiga markaas muruga ku taal because markuu caafimaadka qabay markii uu macnaha ay naftu ku jirtay ee uu qalinka galayay ma aadan caafinin oo ma aadan qalbigaaga uma aadan xaarin fahmaysa marka mar hadii uu lugta furo واسك فكرت أيضا لكن حكى قروح بدن إن قفك مركو حالة ku jiraba aad la murugooto dareensiiso inuu yahay qof kane qof Soomaaliyeed dhiig Soomaaliyeed iyo dhiig muslimiin inta badan ku jira wayn ku dheereeyay barnaamijkan aad bad muusada daashada muuqaalka waa ka shacab kule sida iyo muuqaal